tii uun halkii kasii jaan qaado bay ila noqotay ilaa iminkana tii uun baan ku jiraa waddankaasi dee xilal badan baan kasoo qabtay mar jabhad baan madax ka ahaa IGLF la odhan jiray mar baarlamaankii gobolka Soomaalida si fiican mudane ma maqashaa halo waanu ka xunnahay khadka ayaa moodaa in uu xun yahay ama uu go'ayba waxaan rajaynaynaa se inuu kusoo noqdo mudane riyaale xaamud axmed oo maanta barnaamijkeenan Ilays TV iyo welibana qoraxay web TV marti inoogu ah hello mudane ma maqashaa halo may maqashaa khadka yar go'an maray khadka go'ay adigoo raalli ah waan ka xunnahay weli khadkii ayaad moodaa inuu aad iyo aad u xun yahay mudane may maqashaa waan ku maqlaya si fiican waan ku maqlaya haye ku soco marka xilalkaasna waan kasoo qabtay anigoo dee markii hore moodayay in bal wixii dastuurada lagu qoray iyo markii isbedelkii dhiigacabkii Mingiista Haile Hawadu ka baxay qoladani ay masabidka ay dadka ku indhasar caadiyana aan run moodayay baan xilalkaasoo dhan kasoo qabtay oo bal aanu eegaynay meesha ay ku dambayn doonto markii aan ka qanacayna waa tii noqotay in aan ku biiro jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ilaa iminkana aan bartanka ugu jiro aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane riyaale xaamud barnaamijkeena ciwaankiisu siduu yahayba waa siyaasadda cagaha aan ku taagan ee u dhaxaysa Addis Ababa iyo Muqdisho ayay dani ugu jirtaa Somaliland iyo Ogaadeniya waanu soo noqon doonaa labadan magaca ugu dambeeya bal waxaad si guud warbixin naga siisaa xaaladda Ethiopia iyo xilliga lagu jiro runtii xaaladda Ethiopia sida inta badan laga wada warqabo xaalad khalkhal bay ku jirtaa xaalad tiirashii ay ku taagnayd uu aboor galay ama dirxi galay way biyo xag hoose kasoo wada galeen baad moodaa iyay ku jirtaa oo wixii ay ku taagnayd oo dhanba ay kulligood wada daxalaysteen oo ay sii dumayaan taasina waxay ku mutaysatay dulmigii ay shucuubta ku hoos jira ay ku samaynaysay kooxda yar ee is-ajimisay ee TPLF-tu taas waa ta keentay marka daraf ilaa daraf iyagoo kala qodnidu kala duwan yihiin kala luqada duwan kala qiimada duwan in ay ka wada dhiidhiyaan meel walbana iminka dabku uu ka holcayo inkastoo waxaasoo dhanba ay aabbo u ahayd ama hooye ay u ahayd jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo diidmadeedii qayaxnayd ee ay kaga soo horjeesatay kooxda yar ee TPLF-ta iyadoo ONLF-tu ay fahmaysay meesha ay ku socdo qoladan iyo sida ay yihiin marka iminkana dee dagaalo badan baa ka socda kacdoonnaa ka socda hadday Oromo tahay hadday Amxaara tahay hadday Gambeelle hadday Benishanguul hadday Sidaama tahay xataa Abaridii gobolka Canfarta meel walba dad baa runtii ka qiiqaya oo iyaguna isku dayayaan inay kolba meel ay ku damiyaan iyagoo halkaa ka raadinaya cimri dheer marka xaaladda Ethiopia sida dee adduunyadoo dhanba ay warbaahintooda ay ku qorayaan xaalad khalkhal oo maxaan ku raadayay dowladihii fashilmay wadadeedii bay cagta saartay kuna jirta taasna waxaa sababay cadaalad darradii iyo dulmigii iyo xasuuqii ay ku hayeen shucuubaha goosooda ku jira waan gartay haddii aan u gudubno xagga iyo Ogaadeniya waxaan la soconnaa in ay waddanka cudurro fara badan iyo cunaqabatayntii abaari u dheer tahay ay ka baryahan dambe ay ku habsadeen sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan gobolka Shiniile dhulkii horey loo siiyey ciidamada Ethiopia in baryahan dambe oo isagana dhibaatooyin fara badan oo ku soo kordheen maxaad si guud gobolka warbixintiisa naga siin kartaa
run ahaantii gobolka soomaalida ogaadeen ama gobolka soomaalida Ethiopia ay gumaysato waa gobol loogu talagalay in dadkaasi la xasuuqo la barakiciyo laga raro dalkoogana lala wareego haddii ayna jirin iska caabinta iyo mintidnimada iyo runtii diidmada qayaxan ee ay shacabkaas wadaniga ay kaga soo horjeesteen waa horaa lala wareegi lahaa dalkoodii iyo khayraadkoodaba marka xanuunadani soo noqonaya abaarahani waxaan oo dhan waxay inta badan sal u yihiin ama ay ku hayaan salka waa qorshe la doonayo dadkani in lagu mariyo lagu laayo lagu kiciyo lagu baabi'iyo maxaa yeelay waa dal khayraad badan leh oo waxyaabahan dhacaya ee abaaraha lagu sheegay oo dhanba laga maarmi lahaa ama la maarayn lahaa ta'allana waa meesheeda laakiin intii bini aadmigu uu samayn karaya waa wax la samayn karaya laakiin waa qorshooyin ayaa anigu isleeyahay loogu talagalay dadkaasi in lagu mariyo si dhulkooda loo qaato oo dadyow kalena loo soo dejiyo gobolka shidiina kuwa uu la mid yahay wax gaar ah inka isaga si gaar ah u sii haysan ma jirto marka qabalayaashii ama tuulooyinkii yaryaraa ee cafarta waa lagu wareejinayaa weli sidiiba dhibaatada uga taagan yihiin tanina waa qorshe loogu talagalay ama ay qolada TPLF ugu talagashay inay qoomiyadaha deriska oo dhanba ay isku wada dirto isku wada mashquulin si iyadoo ay uga faa'iideysato oo loo arkin dulmiga iyo xasuuqa ay ku hayso shucuubta dulman ee gumaystaha ama maamulkooda ku hoos jira waan gartay dhegaystayaasha ama daawadayaasha sharafta leh oo ciwaanka barnaamijkeenan waa siyaasadda cagaha aan ku taagan ee u dhaxaysa Addis Ababaha iyo Muqdisho ayay dani ugu jirtaa Soomaalida ogaadeenyaha iyo Somaliland mudane Riyaale Xamed Axmed siyaasadda geeska Afrika laga soo bilaabo 8 February xilligii la doortay madaxweynaha waddanka Soomaaliya mudane Farmaajo waxyaabo fara badan ayaa isbedelay Ethiopia aad waxay isugu dhabar jabisay intii xilliyadii ay doorashadu dhacaysay in ay soo doorato madaxweyne la mid ah madaxweynayaashii iyo hogaamiye goboleedyadii hore uga jiray dalka Soomaaliya ay gacanta ku haysay nasiib darro weyn ku guuleysatay intii waxa xilliga ka dambeeyay Farmaajo doorashadiisii waxaa soo baxday culays fara badan iyo siyaasad Ethiopia سياسة علاش فربضان سياسة إثيوبيا سوف فوت صارتي بل حرير كصوماليا إيو إثيوبيا محاهد اللي غفلان كرا ولا حرير كصوماليا إثيوبيا وجه بصبه قالي وحانا سوا يسبدل كان أما فيلان واغني وكسب بحي فرماجو إنه مدحونا كان نقطة دولة فدرال كصوماليا Ethiopia marna may filaynin awoodii ay gelisay haday mid dhaqaale tahay haday mid military tahay haday mid siyaasadeed tahay walays kasta oo ay gelisay oo maalmihii doorashada ka horeysay heer waxay gaadhay in ugu yaraan ilaa 8 jarana loo diro gobolada Soomaaliya oo dhanba gaar ahaan maamulka goboleedyadani qaarkood madaxweynayaasha qaarkood loo hanjabo ragii baarlamaanka ahay labada gole ku jira qaarkood telefoon loo diro oo loogu hanjabo inuu hadii aad sameyn weydin waan idin dilaynaa iyo waan idin leynaynaa laakiin baarlamaan dhalinyaro u badan oo maskax furan fahamsanna saxwadani ama kacdohonkani imika Soomaali doonnimada ah iyo Ethiopia-nimadiidnimada ama gumaystiidnimada baa ka hor timiday oo ay ikhtiyaarkooda runtii ay ku doorteen laakiin Ethiopia waxba ulama harin taasi marka waxay keentay iyada laftigeedu in shirqooladii iyo waxyaabaha Ethiopia ka shaqeynayso dhanba shacabka Soomaaliyeed iyo maamulkiisiiba ay dareemaan marka xiriirka labada wadani waa uu xiriir maxaan ku raadayay salka ku haya shaki iyo maxaan ku raadayay nacaybkii awalba soo jiri jiray taariikheed oo dib u soo faqmay aanan moodin inay wado cusub ay qaadatay labada nin ee meesha iska sarreysay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre oo labadaba laba nin oo runtii dhalinyarada ah kana maskax furfuran koox badan oo ka soo horreeyay iyo qodobada ku haya ama salkana ku haya dhalinyaro baarlamaanka soo wada galay oo gobolada laga soo doortay iyaguna maskax furan leh dowladda Ethiopia way aragtay in
wixii ay waday iyo sida wuxuu rabto oo dhanba ay wax ugu socon waayeen iyadoo wax walba gelisay marka iminka inay isku dayayso inay dabaqabad ay samayso bal weji ka duwan ay keento taasoo ay ku bilowdayba in ay safiir nin soomaalida la gumaystay Ethiopia ay gumaysteen soomaalida ay safiir uga soo dhigto raggii sirdoonka ahaa ee waddanka ka wada shaqayn jiray oo dhan la wada bedelo ciidamadii qaarkood la wada bedelo wixii oo dhan iyo weji cusub in la keeno taasina waxay ku timid fashilaadda ay ku fashilantay in uu dib u soo noqdo xasan sheekh maxamuud oo meeshii ka soo baxay filanwaagan farmaajo weliba cod filanwaag uu ku soo baxay marka siyaasadda labada wadani waxa salka ku haysaa nacaybkii awalba jiri jiray ee cadowga ee taariikheed ee soo jirayay ay soomaalidu arkaysa Ethiopia inay hayso dad iyo dal Soomaaliyeed Ethiopiana ay markastaba dareemaysay in ay la fahamsan yahay dalka iyo dadka ay haysato marka aga badan kuma taagno laakiin iminka waxaad moodaa in la ciyaarayo war bal waxaan dejinno oo bal hala siyaasadeeyo oo maxaan ku radaa bal wejiyo cusub iyo maxaa inteen wada socon karnaa baad moodaa in la wada ciyaarayo laakiin wadadii hore si toosay uga baydhay siyaasadda Soomaaliya iyo doorashadii farmaajo waan gartay sida ciwaanka barnaamijkeenu uu yahayba waxa weeyaan dhagaystayaal siyaasadda cagaha ba'an ku taagan ee u dhaxaysa Addis Ababa iyo Muqdisho ayay dani ugu jirtaa Somaliland iyo Ogaadeniya oo moodo in ay Muqdisho iyo Addis Ababa siyaasiyiintoodu kala taageerayaan madaxda maamul goboleedka Somaliland waxa ay ku dhawaaqeen toddobaadadan aadna ugu celcelinayeen in ay shaxdu isbedeshay hogaamiyaha musharaxa maamul goboleedka Somaliland Muuse Biixi Shalay wuxuu ku qudbadeeyay in hawshii isbedeshay qobkiina Soomaaliya laga qaadayo iyaguna ayna biyo gacantooda ku jirin maxaa la fili karaa dagaalka ama hanjabaadaha noocan ah ee maamul goboleedka Somaliland ay hadda aad ugu celcelinayaan wallahi maamulka Somaliland iyo Muuse Biixi waa inta badan waxay ku salaysan tahay khudbadaha Muuse Biixi waxay ku salaysan yihiin ololaha doorasho ee uu doonayo in uu kursiga madaxtinimada Hargeysa uu ku qabsado dadkiina marka uu ku soo kicinayo caatifadii hore iyo abaabulkii maxaan ku raraa aragtidii SNM-ta ee ka kaca iyo waana nalaaya iyo reer baa nagu duulay iyo koonfur baa naga soo duulay taa un bay salka ku haysaa ee badanaa macno badan wax samaynaya maaha laakiin isaga laftiisu wuu fahamsan yahay in